ما socon karta kubadda cagta haddii aan loo helin masaarad iyo dawlad garab taagan oo miisaaniyad la garab taagan haddaan loo helin kubadda cagta Soomaaliya meesha ma dhaafi doonto waa idin sheegay aniga oo saxaafadda u sheegay wadamada la ciyaarayna wadanka ugu yar $22 milyan dawladdu isku soo qarsh garaysay annagana hal sentin la kuma qarsh garayn marka waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha u sareeyo ra'iisul wasaaraha ku xigo wasiirka isboortiga ku xigo in loo gurmado in budgetka dawladda marka la dejinayo budget loogu daro isboortiga run ahaantii xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta waxa uu sameeyay dadaal badan sameeyay dhalinyarada banooni fiican ay ciyaareen sharaf badan ayay muujiyeen dadaal badan inta tabarteen waa ciyaarnay xiriirkeenna waana garab istaageen waa dagaalameen waa wax badan la soo sameeyay run ahaantiina guusha waa iska nasiibka meesheedii waaye 54 dawladood in 12 dawladood ka naqanay wax weyn waaye tartankaana dhalinyarada way ku cusbaayeen natiijada ay sameeyeen guusha ay sameeyeen waa ogtihiin ta kaleeto dawladaha caalamka oo dhan waxa waaye insha Allah taala xiriirkeena waxay ciyaareen xogka Senegal oo kale Senegalna ogtihiin inay professional wada ahayeen waa aragteen la ka aragteen iyo sidii u dheeleen iyo dibadaha iyo Paris iyo academy si ugu ciyaaraan dawladoodana 22 milyan ay ugu soo deeqeen markay soo baxayeen insha Allah taala waxaan rajaynaynaa maartay in anagana shacbigeena maartay ay isboortiga iyo fundraiserka ay fahmi doonaan dhalinyarada maartay waa ku qanacsanaa guusha ay gaareen gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta Mudane Ali Cabdi Maxamed oo loo diyaariyay maartay hotel kale oo dhigiisa madaxweynaha Algeria kubadda cagtana oo ka diiday oo yiri dhalinyarada la noolaana oo ku amaanayna insha Allah taala xiriirkeena oo gudoomiyaha ku-xigeenka iyo dadka kale ay taaka iyo nool soo xiriireen naga warqabeen insha Allah taala waxaan rajaynaynaa nasiib wanaagsan ilmaha qaranka oo la wada leeyahay natiijada ahlan alxamdulillah waa ku qanacsanaa insha Allah taala safaradu way badan yihiin guulo badan oo insha Allah taala waa imaan doona insha Allah taala lagu farxo shacbiga Soomaaliyeed iyo dawladeena iyo dhamaan waa mahadnaqaynaa mahadsanidin salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh runtii maanta waxaa sharaf weyn inoo ah inaan ka soo qayb galno soo dhaweynta loo sameynayo ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliyeed runtii qof walba oo Soomaali ah ama adduunyada oo dhan Afrika ama Carabtaba way dareemeen in ciyaartooyda xulka Soomaaliya ay matali karaan magaca Soomaaliya run ahaantii muddadii faraha badneed oo aniga aan ka mid ahaa ciyaartooydii dalka iyo macallimiinta waxaan xaqiijinayaa hortiinana aan ku xaqiijinayaa inay tahay markii ugu horeysay ciyaartooy Soomaaliyeed ee masabka iyo magaca iyo sharafta ay u soo hooyeen ummadda Soomaaliyeed inay tahay markii ugu horeysay ka wasaaradda ahaan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala doorka iyo waajibaadka naga saaran inaan qayb muhiim ah aan ka qaadan doono waa u mahadcelinaa mar labaad wafdiga ciyaartooyda macallimiinta dhammaantiinba waana salaamantihiin